gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool ayaa deeq raashin gaarsiiyay deegaanada xidhxidh dhumay iyo balihada raashinkan oo loogu talagalay sidii loogu caawin lahaa dadka ay abaartu saameysay isla markaasna u soo barakacay guud ahaan gobolka Sool ayaa waxa ka mahad celiyay deeqdaasi raashinka dadkii la soo gaarsiiyay oo ka warbixiyay xaaladda abaarada ka jirta deegaanadani waa dhumay weeyo dhumay waxa halka kan noo yimi raashin ka kooban 120 kiish oo raashina 80 qoys raashinkoodii baa noogu yimi halka dhumay oo qolada asrifeenku ay noo keeneen ilaahay baa mahad leh waana raashin weeye laakiin dadka raashinka halka loo keenay iyo raashinku isma leh halkan waxaanu soo gaaray deeq raashin ka kooban sonkor iyo bariis iyo daqiiq iyo saliid raashinkaasi camuum waa raashinku waxa weeye 120 kiish oo loogu talagalay 80 qoys 13 saliida iyo 2 caagadood oo dheer cid kasta oo la soo baxday ama maamulka ha ahaato ama cidii kale la soo baxday gacan ka geysata ha ahaato dadka walaalahooda tabaalaysan ee isku soo guuray ee abaaruhu hayaan mahad baan ugu celinaynaa anagu waxaanu nahay dadkii ka soo guuray gobolka Sanaag khaasatan degmada Dhahar waxaanu deganahay ama muddo sanad iyo dheeraad degan meesha la yiraahdo Baleharac runtii la isma weydiin karo ma dadku wax badan istaro laakiin waxa la isweydiin karaa maxaa la awoodaa walaalaha iyaga reer Baleharac iyo deegaanka iyo dadka aanu guurnay sharaf iyo soo dhaweyn biyo iyo baad haday tahay baanu ka mudanay waxbaanu wada qabnaa jilaalkuna deewaabana wada hayaa iminka waad u jeedaan halka raashin yar baa la keenay anigu waxaan ka mid ahay odayaashii isaga wax ka qaybinayay qadarin weeye waana ku mahadsan yihiin soo gurtadu waxay ka kooban tahay ilaa iyo gobolka bari ee Puntland ilaa iyo Togdheer oo Burco waxa kale siyaado ku ah dharkayn iyo dhumay iyo wixii lamada oo yana laga soo qaxay la isugu yimi waxa soo gaaray dadka wax ku filan iyo wax u dhow iyo wax loo keenay karo midna maaha anagu waxaan leenahay dadkii la soo baxay waxan ajar ama dibadda joogan ama dadka dalka joogan ajar iyo xasanad Allah ka siiyo waxaan leenahay noo noqdo mar noo noqdo war waxaan wax nagu filan iyo wax na gaar kale iyo waxaan cid u qaybin karna ma aha war ha noo kale wax nagu filan shaqaale dheer oo kamid ah gudida taakulaynta abaaraha gobolka Sool ayaa ka warbixiyay deeqda raashinka iyo cidda soo bixisay isagoo gaarsiiyay isla markaasna uu qaybiyay dadkii loogu talagalay waxa magaaladan oo magaalo weyn oo degmooyinka kamid ah la siiyay 80 qoys oo qoyskiiba uu leeyahay 3 xaaf oo raashin 25 kiilo oo bura 25 kiilo oo bariis iyo 25 kiilo oo sonkor iyo caagad saliid waa raashin fiican alxamdulillah tabaaraka laakiin tiraahan waa yar yahay ummadda meesha joogta marka loo eego waa yar yahay dadka halka jooga waxa ugu badan dadkii ka soo guuray ceelaf weyn iyo maxaan ku raadey meesha la yiraahdo xudun iyo gobolka Sanaag dadkii ka soo guuray Orbogeys baa jooga marka biyaha la siiyayna waa 20 ka booyadood ay yaashoodii sheegeen deeqdaana waxa keenay Ilaah baa deeq bixiya ah waxa keenay dawladda Soomaaliland baa keentay cid kale oo ummadan wax soo siisay haday Puntland tahay haday Soomaaliweyn tahay haday cid kale tahay ma jirto dhinaca kale gaadiidka booyadaha oo muddooyinkii dambe biyo dhaamis ka waday deegaano hoos yimaada gobolka Sool ayaa dhammaanba deegaanadii loogu talagalay la gaarsiiyay biyahaasi waxayna dadkani codsanayaan in loo fidiyo gacan bini'aadanimo Samiir Saciid bila telefishinka madaxa bannaan ee bulshada la saacanood